madaxweynaha ku dhiirraday Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka dhammaantood waa u hambalyeeynaa waxaan leenahay meesha aad gaarsiiseen waa meel aad u wanaagsan waxaanu rajaynaynaa mar labaad inaan lagu laaban 66kii oday 66kii xubnood oo baarlamaanka ay odayaashu soo xuli jireen waxaanu rajaynaynaa waddanku inuu u gudbo dimuqraadiyad iyo dadku qof iyo cod oo dadkana lagu soo doorto xildhibaanada lagu soo doorto oo madaxweynaha lagu soo doorto oo dhammaan hay'adaha dawladda lagu soo wada doorto ayaanu rajaynaynaa doorashooyinka soo socda inaan mar dambe lagu laaban 66dii waxay noqon doontaa doorasho qof iyo cod ah taasaana reer Puntland uga fadhiyaan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka waxaan leenahay shaqada aad qabateen hambalyo meeshaas iyo meel ka sii wanaagsan sii gaarsiiya dalkana waxaan leenahay nabad ayaan ugu baaqaynaa cid kasta oo Puntland qalalaasa ku wada waxaan leenahay nabad hal qaato in Puntland maanta ka gudubtay qaabkii qabaliga ah oo 66ka ahaa oo ay u gudubtay qof iyo cod oo ku dhiirrada madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxaan rajaynayaa inuu ka dhabeeyo doorashada qof iyo codka ah waxaan rajaynayaa in dhammaan bulshada reer Puntland ay arintaas garab istaagaan waxa farxad weyn noo ah inaan isugu nimi kulan aad u xiiso badan dhammaan dadka reer Puntland gudaha iyo dibaddaba ma sha Allah talaabo horumarna oo qaaday dawladda Puntland oo ah in loo gudbay xisbigii ahaa in xisbiyo la isku doorto dimuqraadiyadda la gaaray iyo horumarka ilaa 1998 ilaa 1998 ilaa 2023 madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Karaash iyo gudoomiyaha baarlamaanka horumarka ay ka sameeyeen iyo dimuqraadiyadda Puntland ay gaarsiiyeen insha Allah taala waa hambalyeynaa waxaan kala u hambalyeynaa hoggaanka ACC la doortay maanta oo soo lagu dhawaaqay insha Allah taala guul baa u rajaynayaa meel kasta ay joogaan reer Puntland waxaan leeyahay hambalyo waan leeyahay waddanka horumar iyo baraara ka jira waxaan kala u hambalyeynayaa dimuqraadiyadda dalka ka jira Soomaaliya 25 sano Puntland dimuqraadiyad bay gaadhay waxaan madaxweynaha ugu hambalyeynayaa horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xisbiyada uu sameeyay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa madaxweynaha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka shaqo wanaagsan baa qabateen waajibaadkii laydin idmadayna si fiican baa u gudateen waxa weeye ilaahay ajar iyo xasanaad idinka siiyo shaqada wanaagsan aad dadkiina u qabateen war labaad waxaan leeyahay hambalyo aywa maxamuud salaad jaamac waxaan hambalyo iyo bogaadin waxaan ka soo dirayaa caawa waddanka Belgium aan ku qabanay laba xalfadood oo isa saaran xalfadii sanad guuradii 1 Agoosto ee Puntland asaaskii Puntland iyo xalfadii dabaaldegga xisbiyada iyo dimuqraadiyadda Puntland u dhaqaaqday hambalyo aan leenahay dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland guusha Puntland waa guusha Soomaaliyeed reer Puntland waxaan leenahay hambalyo farxadda iyo sanad guuradii ayaanu hambalyada la wadaagaynaa hambalyo